بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa yuusuf cali geedi. waxaan ka tirsanahay bahda nabadda iyo cadaaladda. sida aan nooga barteen waxaa idiin soo gudbiyaa barnaamijyo yar oo isugu jiro qoraallo iyo fiidiyoyaal yar aan soo duubay oo aan ku hadlaayo nabadda iyo cadaaladda dadka soomaalida. sida ogtiin wax wanaagsan sheegitaankooda waa la badiyaa sidaas ay wax wanaagsanna ku samaysmaan wax wanaagsanna ku abuurmaan. muxuu ahayto wanaaggana uu ku xoogaystaa uu ku hormaraa. qof kastoo wanaagsan ay aragtidna macallinkiisii dadkiisii iyo wixii uu jeclaa aa wanaag ahaa intuu ka hela marka dadkaas kaleu ka hela marka adigana noqo qof wanaagga gudbiyo oo wanaagga laga helo sidaasna ogow dhibkana in laga baxayo marka muhiimaddeeda maanta aan soo qaadanayo waxay tahay iskaashiga soomaaliya maanta marxaladda ee maraysa iskaashiga muxuu taraa ma la isdhihi karaa xaaladda soomaaliya maanta iskaashiga wax weyn oo ka tara oo ka bixina dhibaatada joogto horumar ayuu gaarsiinaa ma la isdhihi karaa iskaashiga haa inay iskaashadaan soomaaliya maanta marxaladda ay joogto wuxuu gaarsiinayaa horumar waxyaabo badan ay u baahnaayeen waa ka daboolaa u baahan marka aniga iskaashigii markaan baaray oo aan nabaddii cadaaladda waafajiyo kasoo dhex baxshay waxaan arkay muhiimad badan uu leeyahay iskaashiga 3 shay aan ka soo qaato marka oo uu maanta wax weyn ugu tarayo soomaaliya kow markay dadka iskaashadaan waxaa xoogaysanaya midnimadooda qarannimo 2 waxaa meesha ka baxayo is-aaminaad la'aan iyo kala shakinta uu bixina 3 natiijana waa gaarsiinaa 3 aan kugu soo celsho iskaashiga wuxuu leeyahay kow inay midnimada adkaato 2 inay is-aaminaadda iyo kala shakiga uu yareeyo 3 inay natiijada la gaaro 3 aan kusii kala sharaxa marka midnimada isu adkeena dal markaa maqashid dal sidiisaba dal waxaa noqdo dad meel isla degan oo calan leh oo magaca leh oo uniform leh dal la yidhaah oo sharci la dowlad leh waxa ka dhexeeya marka maxaa waaye noloshooda ka dhexayso noloshooda marka maxaa asal u ah waxay ku midoobayaan intaasoo calaamadood ay leeyihiin inay jiraan maxay marka iskaashiga uu siinaa hadday isu kaashadaan inay adkaato fahmaya 2 muxuu yareynaa markay isla shaqaynayaan oo shaqadaas ka dhexaysa dalkii dowladnimadiisa oo publika shaqada publikada ah ka dhexayso ay isla samaynayaan inaysan kala shakin aysa caawiyaan shakigii is-aaminaad la'aantii inay ka shaqeeyaan aysan soo dhexgelin iskaashiga keenaya iska warqabaan isugu yihiin ee isu kaashanayaan wax is-aaminaadiyo iyo shakigiyo bixinaa marka 3 maxay tahay marka hadafkii ay yeelanaya marka intaas waxay u baahan hadaf ay ku helaan inuu jiro natiija imaanaysa marka hadafkeena muxuu yahay war intaanoo sheego dowladnimadeenna iyo dalkeena inuu jiro waa hadafkeena ujeeddadaasaan leenahay inaan gaarno hadafkeena waa kaas ujeeddadana waa taas fiiriya natiija imaanaysa marka la gaarada marka ujeeddada natiijada maxay tahay marka iskaashiga marka wuxuu keenaa natiijadaas markay iskaashadaan dadka oo intaasoo shay isku kaasaan inay soo baxdo wuxuu u yeelaa natiijo baaraka allah fiikum wajida aan kugu soo celsho 3 shay iskaashiga uu meesha adkeenaa kow midnimada qarannimada dalka leeyahay inuu meesha ka bixiyo shakiga iyo muxuu ahaato is-aaminaad la'aanta 3 in natiijo ay timaado markaas sii dhex gasho faa'iidada uu leeyahay iskaashiga waa badan tahay laakiin intaas khatar ka soo qaatanay waxaa ka mid ah dadka markay iskaashadaan baahida badan maanta amniga fiirda soomaaliya waxaa luu leeyahay intaasoo barojectaa xaniban oo haddii amni tahay hadday dhaqaalo tahay hadday shaqo tahay oo dhaqaali lama haayo ama dadka mala tababari karo dalka yaa iskale ku nool toor dadka soomaalida iskale wuxuu daboolayaa markay iskaashadaan baahida dhaqaalaha markay u baahnaayeen intaasoo dhaqaale hadday iskaashadaan wuxuu yareynayaa baahidaas dhaqaale hagarna ma imaanayso cuqdadna ma imaanayso oo dadka qaar kamida ma yeelanayaan ma dhahayaan nanka qaarkaasaa naga xigsada dowladdii qaarkaanna waa baneela fuuciye ma dhahayaan laakiin kulligood waxaa asal u ah nabad iyo cadaalad nabaddii cadaaladda meelaysan ka jirin wax ma laga alifi karo waxna lagama shaqay karo
dowladnimada waa loo baahan yahay inay jirto oo la kala sara maro akhlaaq iyo ixtiraam ay leedahay jagooyinka kala sarreeya arkiisa madaxweyne ra-iisul wasaare baarlamaan wasiiro gobollo degmooyin jago kastoo dowladda ka mid ah saas lagu kala sarreeyo hebel ama qoloba qole ay kasoo amar qaadanayso oo uu faraayo sharciga ay ku shaqeeyaan waa brotokoolka markay isu kaashadaan marka wuxuu yaraynayaa iskaashadaan oo isla shaqeeyaan inay isu kaashadaan inay jirto arrintaas wuxuu meesha ka bixinayaa inay shakiyaan oo is-aaminin ka bixinaa saddexda shay aan kuu sheegaya xoogaysanaya marka midnimadoodii xoogaysanaayo jiritaankooda ahayd laba waxaa xoogaysanaya inaysan kala shakin oo meesha ka baxaayo is-aaminaad la-aanta saddex natiijana waa siinaa oo wixii ay ku aadaanba natiijo ka gaarayaan ay iskaashaayo saamka ugu soo qaata fiirda mahmada soomaalida waa badanta quraansho aruurta bulac waa jiidaa aanay soomaalida ku mamaado bal fiiriya iskaashiga waa meeshaas waxaa hadda fasiraya qoraansho aruurtay bulac waa jiidaa waxaan rabaa inaan mahmada soomaalida u adeegsado iskaashi qoraansho aruurtay bulac waa jiidaa loogu yiri qoraanshadaas maxay ku heshiiyeen inay bulacaas jiidaan xaggeeyaan waa iskaashadeen marka midba dhinacu ka qabta midba dhinaca qabta kii boosuu qabta waayena tii ka horreysuu u riixa fiiriya ayduu jiidaa fiirsafac u fiirso dhowr kun ay ku imaanayaan markay dhinac ka wada qabtaan ay ka asii qabqabaha waa jiidayaan god kale galayaan bulac waxay ku badbaadayaan bulacaas ay cunayaan muddo dhacankiisa dhuuqayaan marka balka war maantoo soomaaliya ee iskaashato ya maysan heli karin inay dalka dhinac u baxo oo dadkana ay ku noolaadaan si cadaalada dhaqdhaqaaqa siyaasadda isbeddelka jagooyinka dawliga ah waa loo baahan yahay waxaa ka mid tahay horumarkii ka mid tahay haddaana saas la samaynin waxay noqonaysaa wax lagu caajiso dadka bini aadanka ilaahay qofba karaamuu siiyey qof kaligeed wax tari karta ma leh dal waxaa hormariyo oo wax siiya dalkiisi siday ugu arkaan ayaga inay ugu noolaan karaan sharciga u samaystaanna ay horumar ku gaarayaan haddii iskaashadaanna waxyaabo badan waa ka taqluusayaan oo ay dhahayaan haddaanay helin hadda dhibka jiro waxaa waaye dhaqaale ma yaal dalkii amnigiisa lagu taqluusaa iskaashiga firda haddii la iskaashado amniga la helaa waa loo baahanya dhaqaale uu yaranaa markii intaasoo mushaara bixin lahayd rag waxaa helaysaa kugu shaqeeya nusu mushaar laakiin adna waxaa waajibka saaran oo uu leeyahay lagaa rabaa inaa ogeysiisid oo si la iskula shaqeeyo iyo shaqada meesha u socoto iyo meesha taallo oo dalka qoreen wax yaal horumarkaasuu gaarsiinaa dadka marka maanta soomaaliya waa u baahan tahay marxaladeeda dowladnimo inay ku shaqeeyaan dadka inay iskaashadaan islana fahmaan qaab weji leh oo siyaasi oo la isla gartana ay sameeyaan oo dadka haddana isku kaashadaan jiritaankeeda asoo mucaarada asoo muxaafada ogow xuquuqda insaanka haddaadan tixgelin wax aad tixgelinayso oo mustaqbala ma jiraan wax hadda xaadir aad tixgelinaysna ma jiraan adna ma helaysid marka maxaa aniga shaqadan u qabanaa hadda aniga shaqadan nabadii cadaaladda maxaa u qabanaa haddaasan ilaahay raalli iga noqonayn marka koowaad waxaan samaynaya oo aan dadkayga wax fiican ta u sameeyo aan ugu shaqaynayn aan wax ka faa'iideen ma iska dhaafo oo wax dhaco tuugnooda ma rabi waxaan rabaa in dad saas ay la noolaadaan oo dhulka aan iskula noolaano iyo deegaanka ma fahamta marka magacii waa yuusuf cali geedi ka shaqeeya nabadda iyo cadaaladda inay soomaaliya yeelato dowladnimo wanaagsan isku naxariista magacii waa yuusuf cali geedi soomaaliya allaha gaarsiiyo nabad iyo dowladnimo waarto